ها ولي بوينك من علص warheed hadii ku dhayin war is wada ogna ballan gaar ana qaba maxaan idin sheegay warkaas waa dhan yahay soo dhiib soo dhawow gudoomiye soo dhiib xildhibaan haye saaxiib 12 qof ee soo hor istaagay musharaxiinta yaad ka dooran lahayd adigoo danta guud eegay midkii danta guud wax tari kara ayaan ka dooran lahaa danta gaar ah hadii aan meel iska dhigno yaa kugu haboon danta guud xildhibaan waxa ay muuqda ruug cadaa wadani ah waaye arag ah waxa loo dirayna yaqaan oo hore u soo qab mudane kaasa mudane waa kuma war oday madoobe miyaad arkay sheekh aadan madooban u gart lagama mudane markale ku celi warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beerraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa kuwada ugu waaweyn xukuumadda Soomaaliya oo guddi gurmad ah u saartay dadka ay saameeyeen webiyada Shabeelle iyo Jubba ee dalka Soomaaliya faahfaahin ka soo baxaysa qarax ay saraakiil ciidan iyo askar ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya oo beeniyay in la xaday dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay halka ay marayso qabanqaabada doorashada gudoomiyaha xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo xubnaha labada gole ee baarlamaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameeyo dadka ee daadadku ku saameeyeen Soomaaliya webiga Shabeelle oo fatahaad horle ka sameeyay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka iyo dawladda maamulka Israa'iil oo xiriirka sheegay inuu u jarayo Yahuuda Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad kulan wanaagsan waa sabti axad soo galayso 8 bisha Abriil 2018 warkaas oo dhan Cabduhaab Xuseen Xudiin ayaa la diyaara aad baad u maadsantaa Xuseen Cabdulla Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan xukuumadda Soomaaliya ayaa guddi gurmada u saartay dadka uu saameeyay fatahaadaha webiyada dalka Maxamed Ibraahim ayaa warkan faafahinay رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيري ayaa maanta guddi ka kooban 22 xubnood oo saaray musiibada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasoo ka dhalatay fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle guddigan ayaa isugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan waxaana gudoomiye loogu dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleeda ku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeeladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu
madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxaa kaloo ka mid a culummada soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan waxaa kaloo ka mid a xildhibaano soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maantay guddigaasi waxa uu ka shaqayn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in dowladda soomaaliya dadaal kasta ay ku bixin doonto si dadkaasi loo badbaadiyo isagoona sheegay in beri ay ku qaban doonaan magaalada muqdisho shir amni ah kaasoo diiradda lagu saarayo sidii gargaarka la qaadayo ay ku tegi lahayd si nadiif ah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadkaas soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dowladda soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doonno arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay xasan cali kheyre ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan u gurmashada walaalahooda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobollada dalka soomaaliya qaybaha ay saamaysay fatahaadda webiyada shabeelle iyo jubba shacabka soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi jirin mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horraysa oo aniga igu soo dhacda waxay tahay dadka soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dhib walboo nugu dhacana annagu aan xallisan dadka soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahood ugu soo gurmadaan gobollada deriska la'ah ee meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhib ku saamayn waxaan leenahay u gurmada walaalihiin faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax saraakiil ay ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyaheenna cabduqaadir sheekh muxudiin ayaa warkan faahfaahinay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kuna dhinteen saraakiil ciidan iyo askar qaraxa ayaa sida lagu helayo wararka ka dhashay qof isku miineeyey walaxaa qaraxa kadibna beegsaday gaari ay saarnaayeen saraakiil iyo ciidan la socday waxaa ku dhintay 6 qof oo ay ka mid yihiin gaashaanle sare cabdixukun cabdulaahi maxamuud xoreeye oo ahaa taliyihii ciidamada militariga ee isku dhafka ahaa ee gobolka mudug ka howlgalayay iyo cabdiqani axmed geere oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka sidoo kale 4 ka mid ah ciidanka la isku dhafay ee maamulada puntland iyo galmudug ayaa ku dhintay qaraxa saraakiil ka socota maamulada puntland iyo galmudug ayaana tegay halka uu qaraxa ka dhacay ee magaalada gaalkacyo waxaana la tilmaamayaa in muddo kooban kadib dib u furmay isu socodka dadweynaha ee goobta uu qaraxa ka dhacay oo saacado xirneyd war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka galmudug ayaa lagu cambaareeyey qaraxa waxaana ay ka tacsiyeeyeen saraakiishii iyo askartii maanta ku geeriyootay weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guddiga la socodka iyo dib u egista dastuurka dalka ayaa beeniyey in la xaday dastuurka ku-meel gaarka xilli warkaani uu horey u sheegay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ahna si hayaha xilka guddoomiyaha cabdiweli sheekh ibraahim mudey waryaheena cabdiqani cabdullaahi ibraahim ayaa warkan soo koobay war-saxaafadeed maanta ay soo saareen guddiga la socodka iyo sidoo kale dib u eegista dastuurka ee labada gol ee baarlamaanka soomaaliya ayaa looga hadlay warar maalmihii dambe jiray oo ku aadanaa in la xaday dastuurkii dalka ee ku-meelgaarka ahaa war-saxaafadeedka ayaa u qornaa sidan guddiga dib u eegidda iyo la socodka dastuurka isagoo ka warhaya inuu jiro walaac ku dhex baahay bulshada soomaaliyeed kaasoo ku saabsan jiritaanka iyo saxnimada dastuurka ku-meelgaarka ah ee qaranka waxa uu caddaynayaa in dastuurkani yahay kii saxda ahaa oo ay ansixiyeen golaha ansixinta dastuurka qaranka agosto 2012 laguna wareejiyey baarlamaankii 9aad waxaa sidoo kale dastuurkan lagu soo dhisay hay-adaha dastuuriga ah ee qaranka laguna dhaariyey mas-uuliyiinta qaranka laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo xilligan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka waxaa noo muuqata in maalmahan la wareejinayo dastuur la leeyahay oo midkii saxda ahaa loona qaybiyey golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 25 bishan abriil 2011 kaas oo ahaa qabyo qoraal draft ay wax ka bedeleen ergadii golaha ansixinta dastuurka qaranka iyo guddigii farsamada ee fududaynta
sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi haddaba guddigu waxa uu caddaynayaa ummadda soomaaliyeed in dastuurka sharciga ah yahay midka lagu dhisay kuna shaqeeyaan hay-adaha qaranka aysanna jirin dastuur kale oo uu dalku leeyahay kaasoo hadda ay gacanta ku hayaan dib u eegistiisa guddiyada loo egmaday sidaa daraaddeed qodobka 87 firqadiisa koowaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah waxa uu awood u siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya inuu ilaaliyo mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga dib u eegista dastuurka ee labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya war-saxaafadeedkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor uu warbaahinta ka shaaciyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey in dastuurka saxda ah ee ay wax ka qoreen ergadii loo xil saaray la xaday waxaana jirtay sidoo kale in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay sheegayeen in 25kii bishan Abriil golaha baarlamaanka uu Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey u qaybiyay qoraal la sheegay inuu yahay dastuurkii la xaday وماسنتا عبد الغني guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadla halka ay marayso qabanqaabada doorashada iyo sidoo kale xubnaha doorashada goobjooga ka noqon doona hal maalin oo qura ayaa ka harsan waqtiga loo qorsheeyay inay qabsoonto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu horey u shaaciyay guddiga qabanqaabada doorashada waxaana ay ka dhici doontaa xarunta golaha shacabka oo ah halkii lagu doortay Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari oo 2012 loo doortay afhayeenka golaha shacabka 12 bishan Abriil 2018 golaha hortooda ka shaaciyay in xilkaasi uu iska casilay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka Nuur Bayle oo galinkii dambe maanta warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay xubnaha goobjoog ka noqonaya doorashada kuwaas oo kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Yidla Suleebaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale guddiga madaxa bannaan guddiguna markay maanta fariisteen waxay go'aan ku gaareen inay marti qaadaan gudoonka aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddoonka guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare intaas ayaan ku martiqaadnay oo ka kooban guddoonkooda iyo guddoonka aqalka sare iyo guddoonka guddiga doorashada iyo gudoomiyaha maxkamadda sare intaas waa ku martiqaadnay haddii ilaa yirahdana waa nagala soo qayb gali doonaan dhinaca kale Nuur Bayle waxa uu ka hadlay dhibaatada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo uu fatahaad ka sameeyay webiga Shabeelle taasoo dad iyo dunyo ay ku dhinteen halka kuwa kalena ay waqtigan gaajo iyo hoy la'aan la ildaran yihiin dowladda federaalka ah oo aan aragnay madaxweynaha iyo prime ministerka in ballanqaadidoodii ay naga ballanqaadeen inay fuliyaan oo gobolkaas degdeg loola gaaro waxyaalihii asaasiga ah ay dadkaas naftooda ku badbaadin lahaayeen sidoo kale waxaan gargaaraynaa hay'adaha caalamiga ah ee jira ee dalka ka shaqeeya inay dadkaas la gaaraan gurmad degdeg ah oo dhan walba ah dadkaasi magaalada banaankeeda ay tuban yihiin guryahoodii waa ka carareen wixii dhex yeelayna way ka tageen naftooda kaliya ciyaalkooda ay guryaha ay ka kaxaysteen saas ay u tuban yihiin magaalada gudahooda dadkaasuna waxa lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qofood inay magaalada banaanka uga baxday waxaan codsanaynaa marka in la gaaro gargaar degdeg ah kaas oo leh teendooyin daawo cuntada fudud oo nafaqada leh iyo wixii aan looga maarmin markaas noloshooda in la gaaran codsanaynaa xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xubnaha labada gole ee baarlamaanka waxa ay ugu baaqeen in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka uu saameeyay waa dadka ay saameeyeen fatahaadda uu sameeyay webiga Shabeelle taa oo dhibaatada ugu badan ay waqtigan ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Warxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxay si kulul uga hadleen saameynta dadka shacabka ay ku yeesheen fatahaadaha webiyada dalka oo ay ugu horeeyaan shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ugu horeyn xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu xun yihiin dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed waxaana uu si guud dawladda si gaar ahaan xubnaha labada gole ee baarlamaanka ugu baaqay inay taakulayaan dadka ay fatahaadaha saameeyeen waxaan runtii ka murugoonaynaa
oo aan runtii aad iyo aad uga naxsannahay ugana tiiraansannahay daadadka iyo fatahaadda ka dhacday magaalada beledweyne daadadkaas iyo fatahaaddaas oo waxyeelo badan gaarsiiyey dadka deegaanka guryaha xaafadaha magaalada oo dhan 4 xaafadood wada gaaray oo muxuu ahaay geystay dhib aad iyo aad runtii xanuun badan oo naf iyo maal leh waxaan runtii uga baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in loo gurmado waxaan si gaar ah uga baaqayaa dawladda Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo madaxweynaha in loo gurmado oo wax alla wixii la qaban karo la iskugu geeyo xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka Soomaaliyeed waa dad aad u jecel deegaanada ay matalayaan iyo dadka ay matalayaan jecel in wax loo qabto jecel wax alla wixii aad qaban kartaan inaad muxuu ahaa aad u kaalmaysaan oo u gurmataan oo qof walba intii karaankiisa uu qabto ayaan talo ku dhiibayaa aniga ka xildhibaan ahaan hadii aan ahay Ibraahim Saaqiyarow wixii karaankayaga ah talo iyo tusaale ah iyo deeq ah aan geysan karo tabarteeda intay la eg tahay waan gaarsiinayaa isla maanta hadii Ilaahay yiraahdo guddigii loo xilsaaro sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa dhankiisa ugu baaqay madaxda sare ee dalka iyo xubnaha baarlamaanka inay gurmad u fidiyaan shacabka dhibka haysto Hirshabeelle waxaa runtii aad u naafeeyay fatahaadii webiga qayr walba nusqaankiisa uu leeyahay waxaa ka dhacay roob weyn oo aaran waay dhulkii laakiin haddana webigii ayaa fatahay oo nusqaankaas keenay magaalada beledweyne hal xaafad oo caaw dadkeeda ay degan yihiin waxaa liiga sheegay meel yar oo muxuu ahaay xoogo fooc ahayd ayaa liiga sheegay inay dadka ay ku hersan yihiin dadkii kaloo dhan waxay u kala qaxeen buuraha ku hareeraysan magaalada waxa aan rabnaa in marka ugu horeyso hay-adahaas dawliga iyo kuwa lookaalka eba inay dadka u gargaaraan hukuumadda waxaan ka codsanaynaa in ay muujiso dawladnimo dadkaas iidaa dawlad waa dadkaas dawlad goboleedkii ugu da'da yaraay waaye waxaan ka codsanayaa inay jeebkooda furaan dadka maalqabeenka xukuumaddana waajib ay isaarto waxaa laga dhowr sugayaa talaabada xigta ka hadalka warbaahinta ee dhammaan mas'uuliyiinta dawladda oo maanta sheegay in loo gurmanayo dadka ay fatahaadaha saameeyeen weli wararka fatahaada webiga la xiriira ayaan ku guda jirnaa webiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh waxa uu ka sameeyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan halka oo lagu soo waramayo in dad hor leh ay ka barakacayaan wariyaheena Maxamed Cabdi Sanay ayaa warkan beledweyne ka soo diray gudoomiyaha degmada Boolaburda ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guura Karoor ayaa idaacada kulmiye u sheegay laba ka mid ah xaafadaha magaalada Boolaburda oo fatahaad ka geystay webiga Shabeelle isla markaana dadkii ku noolaa ay u barakaceen goobo kale oo ku yaala magaalada sidoo kale gudoomiyaha degmada Boolaburda ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guura Karoor ayaa sheegay in dad ka soo barakacay magaalada beledweyne ay gaareen degmada Boolaburda taasoo culays badan ku abuurtay magaalada maadaama weli ay goodoon ku jirto waxaan reer beledweyne ka dhacay nala soo gaarin haddaan reer Boolaburda laakiin reer Boolaburda ayagoo culays iska saarnaayo muddo dheer go'doonahay ayaa waxaa ku soo qaxay dadkii dad eheladooda oo beledweyne ka soo qaxay sidoo kale meelo oo wadooyinka dhinacyadiisa maro meelo badan oo biyo ka soo baxeen oo wadooyinka naga go'aan Boolaburda gudaheedana laba xaafadooda yaryar oo hadda aan mataqaanaa saas usii badnayn oo yaryar ayay soo galeen biyaha ilaa laba xaafadooda waxaa ka bilowday in laga guuro oo xaafad kale lagu guuro waa gartay marka alxamdulilah niyo waxaa jira kulley arrimahaas dadkii oo xaalad culus ku jiray oo go'doonkii shabaabka uu culays ku oqay ayaa dad eheladooda kusoo dul qaxeen sida ka warqabtana dee dadku hadday soo qaxaan meel kaama geli maayaane reerkii ay qaraabadiina dul degayaan marka waxaan leeyahay dee waxaan u baahannahay cid alle ciddii mataqaanaa gurmad samay karto waa gartay gudoomiye saan ka warqabno Boolaburda muddo ayay go'doon ku jirtaa wadada u dhaxaysa beledweyne iyo Boolaburdana way xiran tahay dadkan aad sheegtay inay beledweyne ka soo tageen oo Boolaburda ay yimaadeen intay soo mareen wallahi dadku dee waa dad oo marka hore reer Boolaburda ayaa go'doonka ka guuray beledweyne degay iyo dadka kaleeto isdaatay waxaa soo maray wadooyin soo maray dhulka miyiga waa gartay gudoomiye waxaad sheegtay in laba xaafadoo ka mid ah Boolaburda dadku ay bilaabeen inay ka barakacaan train leg ayaa is leedahay way barakaceen sanay tirada weli lama sameynin laakiin biyuhu kolley guryaha markay soo galaan kolley xaafadaas ugu saaran number kamid wuxuu ku qasbayaan xaafadaha kale oo biyuhu ayna gaareen uu ku guuro
maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in 26 kun oo qoys ay ku barakaceen fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne kuwaasoo xilligan duruufo kala duwan ay ku haystaan deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada. maxamed cabdisanay idaacadda kulmiye beledweyn. weli waxaad la socotaan warka habeen ee idaacadda kulmiye goordhowna waxaad maqli doontaan warka dibadda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. baarlamaanka falastiin ayaa iskugu imaanaya kulan ay kaga arrinsanayaan in xiriirka loo jaro maamulka yuhuudda ee israa'iil iyo in kale falastiiniyiinta ayaa dood kulul ka yeelan doono qaabka loo wajahayo xiriirka la doonayo in loo jara maamulka israa'iil kadib markii la sheegay inay bateen xadgudubyada ciidamada yuhuudda ay ka geystaan dhulka ay xoogga ku haystaan ee reer falastiin. kulanka oo la qaban doono maalinta isniinta ah ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee xubnaha baarlamaanka falastiin ay iskugu imaanayaan muddo 9 sano ah, waxaana la sheegayaa in ajendaha ugu weyn ee kulanka lagu falaqayn doono si weyna looga doodayo uu yahay in xiriirka loo jaro maamulka yuhuudda ee israa'iil. warkii oo caawa aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee muqdisho inta ayuu ku dhan yahay. cidda warkeena uu sheegay waxay dib uga heli kartaa radio kulmiye.net. musharax waxaan ahay musharax. maxaad u sharaxan tahay? xilka weyn ee bannaanaaday. wagar war miyaa lagu wadaa mise adaas wada? anigaa iswada ee mudanayaal codkiinna isiiya. war kalbooskaas ma buuxin karo. war anika mudanayaal mas-uuliyaddana qaado karo. hadda ma lagu wadaa mise adigaas wada? haa weliba wawiinka nin culus. war heedhahdimu ku dhan yihiin. war is wada ogna ballan gaar ena qaba. maxaan